waxaan u wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno qodobo ay ka mid yihiin wadahadaladii biyo-xidheenka Itoobiya oo fashilmay iyo Addis Ababa oo bilowday biyeynta biyo-xidheenkeeda, Masar oo sheegtay inay dacwadeeda dib ugu celinayso golaha amniga, iyo Itoobiya oo ku adkaysatay in heshiiskii 2015 u ogolaanayo inay biyeyso dhaamkeeda. macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka. dowladda Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday in hawshii biyeynta biyo-xidheenkeedu ay socoto. wasiirka biyaha iyo waraabka Itoobiya ayaa sheegay in la gaadhay xilligii la xaqiijin lahaa rabitaanka shacabka Itoobiya oo muddo dheer sugayay waqtigan oo kale hawshii biyeynta biyo-xidheenka cusubna ay socoto. waana xilli ay salaasadii soo gabagaboobeen wareegii u dambeeyey ee wadahadaladii ay dhexdhexaadinayeen ururka midowda Afrika iyo goobjoogayaal kale oo hawsha la waday. wareegan wadahadal oo socday 10 maalmood oo xidhiidh ah, wax natiijo oo la taaban karaana aanay ka soo bixin, loona filayo inay gabagabo u noqdaan wadahadaladii saddex geesoodka ahaa ee Suudaan, Itoobiya iyo Masar ee ku saabsanaa biyaha webiga Niilka. wadahadalada oo soo socday muddadii 10 sannadood ahayd ee u dambeysay. Itoobiya ayaa hirgelinta biyo-xidheenkeeda cusub astaan uga dhigtay bilowga isbeddel horumarineed oo ay ku tallaabsato mustaqbalka. qodobada wadahadalka ka mid ahaa ee khilaafkooda la xallin kari waayena waxaa ka mid ah qaabka loo biyeynayo biyo-xidheenka, muddada lagu buuxinayo iyo xilliga laga shaqaysiinayo, iyadoo Itoobiya ay dalbanaysay inay biyo-xidheenka ku buuxiso biyo gaadhaya 74 bilyan oo mitir cube muddada 7 sannadood ah ee soo socota. markeeda horena ay Itoobiya biyaha webiga u aragto khayraadkii dhulkeeda oo ay 80% biyaha lagu muransan yahay ka yimaadaan oo ka soo rogmadaan dhulka Itoobiya. dowladda Masar oo iyadu biyo-xidheenka u aragta mid shaqagelintiisu khatar ku tahay jiritaankeeda ayaa waxa ay dalbanaysay inay webiga ka hesho biyihii hore looga qoondeeyey oo dhammaa 55 bilyan oo mitir cube sanadkiiba. heshiiska ay saddexda wadan wada gaadheen sanadkii 2015 ee Itoobiya u ogolaanayay inay sii wadi karto dhismaha biyo-xidheenka inta wadahadaladu socdaan ee heshiis la gaadhayo ayaa waxaa loo arkaa khaladkii ugu weynaa ee Cabdifataax Siisi ka galo xaqa dalkiisa iyo dadkiisa. xilliga oo aanu kasii fikirin qaybaha dambe ee wadahadalada iyo waxa ay ku saabsanaan doonaan iyo weliba waxa uu dalabaadka Itoobiya noqon doono. waxaana khubarada dhanka biyaha iyo diblomaasiyiinta reer Masar ay heshiiska 2015 ee Cabdifataax Siisi saxay isagoo aan cid kala tashan ama xitaa baarlamaankiisa horgeynin ku tilmaamay khalad istiraatiijiyadeed oo fadixada, isagoo heshiiskaasi ahaa ka Itoobiya wax walba suuragalka uga dhigaya sida inay dhammaystirto dhismihii biyo-xidheenka dabeetana biyeyso oo ka shaqaysiiso. Suudaan oo labada wadan dhexdooda ku jirta dhibaato uma aragto hirgelinta biyo-xidheenka Itoobiya, iyadoo biyaha ay webiga ku lahayd qayb ka mid ah u dhaafi jireen markeedii horeba dhanka Masar, qaybta oo ilaa 6 bilyan oo mitir cube ahaa oo ay haatan isticmaali doonto haddii ay biyo yaraan timaado. cabsida kaliya ee biyo-xidheenkaas ku hayay Suudaan oo uu xuduudeeda ku yaalaana waa khatarta ay biyaha ku kaydsan ku keeni karaan dhul beereedka Suudaan haddii uu si kalaba biyo-xidheenkaasi u burburo amaba waxyeello loo geysto haykalkiisa dhisme. biyo-xidheenkan cusub ee Itoobiya waa biyo-xidheenka ugu weyn ee dab laga dhaliyo ee qaaradda Afrika ku yaala, caalamkana waa biyo-xidheenka 10aad ee ugu mugga weyn. mashruuca dhismihiisana waxaa lagu dhawaaqay bishii Abriil 2011, waxaana uu ka kooban yahay 2 qaybood oo asaasiya, kuwaasoo kala ah qaybta kaydinta iyo qaybta dabdhalinta. waxaana hirgelintiisa ku baxay ilaa 5 bilyan oo doolarka Mareykanka, kaasoo loogu talagalay in laga dhaliyo tamar awoodeedu gaadhayso 6400 megawatt, iyadoo ay shirkado kala duwan oo isugu jira Talyaani, Jarmal, Faransiis iyo Shiineys ay gacanta ku hayeen qaybo badan oo dhismaha biyo-xidheenka ka mid ahaa. guuldarrada haatan ku timi wadahadaladii u dambeeyey ayaa sii kordhin karta khilaafka
iyadoo Itoobiya ku adkaysanayso in wadahadallada la sii wado midowda Afrikana ay sii hayaan kaalintooda dhexdhexaadnimo. qaybta hore ee hawsha biyeentuna ka mid tahay waxyaabihii uu dhigayay heshiiskii mabda ahaaneed ee saddexdaa waddan ee sanadkii 2015 halka ay Masar iyaduna sheegtay in wadahadaladii socday fashilmeen wixii haatan ka dambeeyana ay dhanka golaha amniga ee qaramada midoobay u wareejinayso dooda ay ka qabto qorshaha Itoobiya ku shaqo gelinayso biyo-xidheenkeeda iyadoo aan wax heshiis ah la gaadhin. allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow cirdarroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risac cayimihiiyow cidduu rabo u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow.